قبسومين عكسوين قفنابا قصبكي فرحة هذا خاص oo meesha qurux keliya waay mideeda kale aaba kuraasta hore ayaa banaan meeshaan fadhiisanayna waayahay hadeertaan qolka qurxinta ayaan aadayna asxaabtaan is diyaariyan ayaan soo fiirinaynaa waayayna keene soo bax waxayba ismoodaa jooni shooyadaada inay tahay ka waran gabadheeda isdaji adiga buuqa naga daa hore u soo soco soo bax حبيبي ترتيب الصعو aad iyo aad ayaad u qurux badan tahay macaantadeeda taashkaaga iyo taajkaaga iyo dhammaan ushaada waad wadataa waana kuu diyaariyey quruxlee muhiimadda maaha macanta adiga inaad imaato ee muhiimadda waxay tahay gabar geesiyada inaad noqoto oo maslaxa aadan ku qalqalin waxaan rabaa aniga dheeshaada quruxda badan in aan daawado waana ku fiirsanayaa waana ku dhiirigelinaa hayahay macaantadeeda mar labaad ma ku shumayaane waayahay isdiyaari waa kuu soo laabanaa joonish gabadheeda maanta aadaa u qurux badan tahay midda kale aniga waxaan kugu sugaa qaybta dadka ay fadhiistaan waxaan rabaa inaan labadana isla ciyaarno mideeda kale murugtay iska daa anigaa garabkaaga taagan waxba ha ka walwalin waa kaa sii tegay gabadheeda bay bay arrinka sidoo kuu ahaa amarta marwada aad iyo aad ayay u xanaaqsaneed mideeda kale wejigeeda waxaa ka muuqday aargudsi oo keliya si walba ayaan iskugu dayay inaan wax fahamsiiy laakiin waa ii fahmi weyda qoftaas ma aqaano waxa ay haddeertaan damacsan tahay laakiin kursigaas ayaan fadhiisanayna soo bax diyaal aabbo haa wiilkeyga
cimraan bal fiiri haddeertaan nacaybkii iyo waxyaabihii xuma aan samayn jirin way soo dhammaadeen bal fiiri gabadhaas maslax saaran labadeenna dhiiggeenna waay adigana waalidaa u tahay anigana waalidaan u ahay xumaan walba darteeda iskaga iloowo waayaha suldaankeygii horaa loo yidhi xasuustaa ma xariiriyo haddana waxaan u baahannahana waalidiinta inay maslaxa soo karaan ee carruurtooda la dheelaan soo kara marka muwaalan tahay tanna hay joonish la jecleedeeda kaaleha waan wada ciyaaraynaa hoo gacanteeda qabsa gabadheeda nakeen yaaqee hay nolosheeda beelamaano hay ciyaarayno gabadheeda firaad waa maxay waxyaalaha dhaqanxumada ay samaynaysana markaan way ka soo dartay hay gabadheeda si fiican u ciyaaraya bal fiiri qoftaa maxay samaynaysaa hay joonish gabadheeda ka bax siidaa gabadha mawaalanta naadiga maxaa kaa khaldana gabadha aniga ayaa dhale ma fiican tahay in adiga ma aragtaana naagtaa mar walba waxay jeceshahay anigii gabadheeda sidaan inay noo soo dhex gasho qoftaan mar walba waxay jeceshahay gabadheeda inay anigii iga fogeyso waa balan lagama yaabo gabadheeda iskuulkan inaad sii dhigato gebi ahaanba iskuulkan waan ka saarayaa gabadheeda ma layla xukumaayo diyaal isdejiyaaqe arrinta dhan waa ay dhammaatay tartiib bandhigaagana waa uu dhammaaday marka waan bixinaa okey wayna fadeexaysata ilaahay ha fadeexeeye abooy gudaha gal gabadhayda hay macanta qolkeena ayaa aadaynana keen soo bax hay qolka sii aada waa idinka daba imaanayaa masiibo la ii soo dira ayaa taa xaggeen kaa aadaa naa waa i ceebaysa fimilka waa ceebaysa gabadhaada waa ceebaysa aabbaha waa ceebaysa qof kasta waa ceebaysay balaayaha kugu dhacdo qolkaaga iga gal fiiya qolkaaga galnaaya waad i dhibta adige idoori wejigaaga ufo hay suldaamadeeda ha oyninna waa ku baryaa ilinta iska tatira maxaad u oynaysaane aniga ilintaada ma arki karo joolish macantadayda
masrax markii aad saarneed wixii kaa dhacayaan kuu soo qaaday. sawirka aabahaaga ayaa hore u qaadatay miyaane? horta hal mid ayaan kuu sheegay gabadheeda hambaliin waan ku dhahayaa inta aan ruwaayado fiirsada ruwaayadda ugu quruxda badneed ayaad maanta soo jishay waadna samaysay. runtaada miyaa? haa maxaa dhacay? maxaa dhacay? yaqi waxaan arkay amiiradda barafka iyadoo masraxa saaran oo weliba dhar aad u qurux badanna xiran tahay. oo bal fiiri, amiiradda baraf ayay soo dejinaysa sooma? haa aniga xitaa jaakad aad u weyn ayaan wataan ku dha meeshaan ku qarqaryooday waan dhaxmooday anigoo dhan ka waran. hay barafa beelo war wax walbaan ku dha barafka ayay ku habaysay ka waran. firaad xitaa tintiisa qabow ayay aheedaan ku haa dadkoo dhan aan ku dha way qaboobeen xitaa way qarqareen ka waran. qoraxda jooniish way soo baxday runaanti way ifaysaa maanta. xafladoo dhan ayay noo iftiimisay kadibna waa kan annaga ayayba noo imaatay. hay akhee dhammaanteena xitaa way naga farxisay sida haddeertaan oo kale. waad mahadsan tahay macaantadeeda. laakiin halkaa markaad imaatay qaboobka dhan wuu dhammaaday. waan ku jeclahay. sidoo kale had iyo aad ayaan kuu jeclahay. waad u jeeddaa gabadhaad waxay suubinayso. ninkayga horaa waxaa loo yidhi doofaar ma daahir durdur iyo dabaal haddoo galo. si kastood u waanisid iyo si kastoo u waaniyo diyaa inay isbeddesha lagama yaabo ayaan ku dhahay. yaaqay diyaa rajo beenaha ayaa gelisay horena waa ooga sii waashay maxaa talee waayahay ka jawaab arrintan. yeekhi cimraan waa la socdaa gabadhayda hooyo fiican inaysan noqonayn. laakiin wax walboo dhaco waa aniga gabadhayda. diid ama yeelo waa gabadhayda. walaala diyaal aniga ha isoo wici ani iyo familkiina waan kala dham sawda aniga xaalad xun ayaan ku suganaa qof ay rabtaa way yaraatee mala gurigaanoo dhan waa layga neceb yahay aniga hooy hadhiin aabba hadhiin qof ii fiican mala aniga waxaanan samaynin malaan waa la socotaa dhakhtarka cilmi nafsiga xitaa aniga waa aan tege wax kasta waan samey laakiinse sawda aniga qof ii baahna way yaraatee malaan gabadheedii xitaa aniga si saa'ida ayay ii necban tahay waa la socotaa adiga xitaa maradaada aniga waan qaatay qof ii baahana way yaraatee mala aniga maxaan kale oo liiga goynaya ii sheeg sawda sawda aniga hadda garab ayaan kaaga baahana waa ku baryaa garabisay aniga qof ii baahan malaan naagtaas xunta wax walba iyada ayaa ka dambaysay faamilkoo dhanna iyada ayaa igu dirtay waa balan naagtaan ma dhaafaya aniga sawdaa
bes waay sowdaa aniga dadkan waxaa igu balana ciyaarteeda ugu dambeeyey go'aankayga intaba in aan tuso weli halkan ayaan joogaa haa runtaada waay halkaas ayaad joogtaa waad saxan tahay diyaal dadkaasoo dhan way kaa qaldan yihiin adiga gabar saxan ayaa tahay laakiin ayaga ayaa qaladka marwalba iskale mideeda kale waan la socdaa gabar caqli badan ayaa tahay aniga dadkii isoo maray gabadha ugu caqliga badan ayaad ahayd waan ogahay inaan aniga aqli badan ahay haa abaayo adiga hadda qorshe fiican ayaad heesaa soo maahane ilaa aan kaa soo wac waxba ha samaynin diyaal inaad fududaato looma baahno anigaa ku soo wacaayo ilaa aan kaa soo wac talaabaha qaadin waasla fahana soo maahna abaayo yaa beela waay mar labaad maxaad u baahan tahay jaaniska ugu weynaa oo familka iyo ciddaas aad ku burburinaysa ayaan kuu hayaa waayahay haddii ay sidaas taa beri shirkadda iigu imow waayahay warda qurux badan ayay seexatay runtii ayada way seexatay wayna daalan tahay nalka ha daarin adiga miyay arkaysaane mugdiga dhexdiisa xitaa si aan adiga kuwa arko iftiin xitaa uma baahni soo ma ogidna dadka qaar waxay dhahaan jaceylka waa sidaas oo kale sideenna waxaa la dhahay qofka ku jecel adigoo hadlan ayuu ku fahmayaa haa waad saxan tahay adigoo aanan hadlin ayuu ku dareemayaa haddii aan ba awooda adiga mugdiga inaan kugu arko sababta aan muddadan oo dhan kuu sugaya anigaba ma aqaano laakiin sababna sababtaan le waaye subax wanaagsan subax lamida quruxleydeeda maxaa cayo ii soo kicin weysana waxay ila tahay ilaa iyo hadeertan inaan aniga riyo ku dhex jiro subax wanaagsan macaantadayda hay sidee tahayna macaanto jooniish jooniish waxaan rabnaa bandhigeena ugu dambeeyey in aan sameyno ma rabtaa inaad adiga aragto dabcan diyaar waad u tahay ayaan u malaynayaa diyaal maxaad ku hadlaysaane adiga xaggee joogtaa mar walba waxaan jeclaa aniga gabadheeda meeshaan inaan imaano maantana waan joognaa macnaha intee waaye waxaan joogaa meesha hadda ka hor anigii walaalkii aan wada imaanay waana meesha xeebta oo buuraha dhaadheer ee leedahay waxaan rabaa anigii joonish bandhigeena ugu dambeeya inaan ku qabanno diyaal adiga maxaad ku hadlaysaa
war maxaad sameynaysaan adiga waa sida hore aan kuugu sheegay anigii joonish bandhigan ugu dambeeyay ayaa meeshan ku qabanaynaa ilif nus saac ayaan ku siinayaa waa inaad meeshan imaadaa adiga haddii aad soo daada waxaad ogaataa bandhigan ugu dambeeyey adiga inaadan arkaynin ilif mideeda kale aniga waxaan rabaa walaalkay in aad ka fogaato haddii aad u baahan tahay joonish nolosheeda haddaba waan kuu digay diyaal halo diyaal معقول ما مية إلف أنت تصعدها إلى هذا الإلف يسوق مركه يا أخي joonish kaal gabadheeda halkan soo istaag joonish waa ku baryaa dhibka jooji waxaan rabaa labadeena meesha noloshan ugu quruxda badnaan inaan aadna gabadheeda ifaan waa ku baryaa anigii adiga oo keliya ayaan meeshaan aadayno meel jabigeeda uu degaya iyo dad annagana jecel ayaan arkaynaa gabadheeda bes joonish naga kala daa aniga hooyadaa ayaan ahay adiga ayaana kula hadlay hadalkayga inaa qaatadaa loo baahan yahay maxaa kugu dhacayna waxaaga waa ka badbadis joonish adigina ay ogolaatid waay hooyada ayaan ahay aniga soo moogin إلهي waxaan ka baryaa joonish wax dhibaato aanay soo gaarin ilaahayow joonish iyo xafid yaa rabbi dhibaato iga gaarin waxyar kadib ilif halkan ayay imaanaysaa jabigeennana wuu isbeddelaya soo beela ma ahana waatana ilif way imaada soo ma aragtidne runaantu qof lagu kalsoonaan karo waa iyada joonish diyaal ha ii soo dhowaanin meeshaada iga joog diyaal laakiin waa ku baryaa gabadhiisii diyaal waxaan ha samaynin beella tahay adiga soo halkaan uma imaanin aniga iyo gabadheeda bandhigeena ugu dambeeyey inaad adiga meeshaan ku daawato haye gabadheeda waan samaynaynaa sama diyaal ha samaynin waa ku baryaa sidaan ha samaynin diyaal ha samaynin waa ku baryaa aniga waan ogahay sababtaa waxaan u samaynaysa balse waxaan ha ku dhaqaaqan diyaal ilif adiga ima fahmi kartid maxaa yeele waxaa tahay adiga qofta aniga nolosheeda iyo mustaqbalkayga intaba baabi'isa soo moogidna jaceylkayga walaalka iyo aabbahe intaba ilif adiga ayaa igala wareegi soo moogidna diyaal waa ku baryaa isdeji walaalkaaga iyo aabbaaga way ku jecelin anigana kaama qaadin wax walba waa xalinaynaa waa ku baryaa wax la xalinaa habeeraatee malaa dunida
wax walba waan ogaa balse joonish gacanteeda siida waatanaa kaala kaxayso waa ku baryaa firaadaa soo socda joonish gacanteeda aniga walaalka dhexdeena aan soo galin haye waaya aniga dambiila ayaan ahay waana qirsanaa dembigayga waan qirsanaha ku dhahay dambiila waa aniga laakiin waa ku baryaa aniga ii aamin joonish iska daa waxaan ku aaminaa malaa dunidan kuugu necbaan waayahay aniga waa ku raacaya meeshaa rabtad ii wado laakiin joonishdeeda lee faraha ka qaad adiga aniga joonishdeeda waa ku baryaa iiddaa waa ku baryaa sidanaa samaynin diyaal joonish diyaal maya diyaal sidanaa samaynin diyaal waa ku baryaa sidan doqonnimada aan samaynin joonish hord meeshaa ka dheerow diyaal waa ku baryaa anigii adiga waan isfahmaynaa wax walbana waan xalinaynaa laakiin saana samaynin diyaal waa ku baryaa diyaal sidaanaa samaynin waayahay haddii ay sidaas tahay labadeena waan isla dhimanaynaa hadda arrintaan labadeena naga dhexaysaa soo maaha maya Elif! Elif! İhanetin kavgasında